Asalaamu calaykum asxaabta qaaliga ah. Maanta waxaan halkan kaga hadlaynaa boqoradda isteelka ah oo si xamaasad iyo xiise leh u soo dhaweysay Hakuul oo magaalada Muqdisho dhowaan oo kasoo degay. Bal ila daawa muuqaalkan heesta dul saaran qiirada ay leedahay. muddadii aan kala fogeyn maqana joogaan ahaa xilliya mugdii baan ku jiray xilliyada kala miirankee magaaladu seexataan. Okay, muuqaalka qaybta hore oo aynu kasoo xiganay boqoradda isteelka xilligii ay sugaysay Hakuul ayaa sidaas u dhignaa, balse markii ay soo dhaweynaysay xaalku siduu ahaa. Sida meesha kaaga muuqata, waxaa loo surayaa baash lagu soo dhaweeyay madaxda caalamiga ee ubaxa, waxayna ka guddoomeysaa flower aad u qurux badan. Okay, bal dhinaca kale muuqaal isagana Hakuul aynu kasoo xiganay habkii loogu soo dhaweeyay garoonka magaalada Muqdisho ee Aadan Cadde ayuu soo bandhigay. Iminka waxaa soo dhaweynaya Bilaal Bulshaawi, sidoo kale waxaa si diiran hore ugu soo dhaweysay iminkana soo dhaweyneyso boqoradda isteelka iyo dad badan oo aad u fara badan oo meesha ku sugnaa. Dhowaan waxaa la filayaa in xaflado muhiim ah loogu qabto magaalada Muqdisho Hakuul, waxaana qabanqaabinaysa boqoradda isteelka. Bal ila daawa muuqaalka Hakuul, isagana xamaasad iyo xiise gooni ah ayuu lahaa, maadaama si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho. Taasina ay ka dhigan tahay qalbi furnaanta ay qabaan reer Muqdisho. Bal ila daawa muuqaalkan. Intaan ayaynu kusoo koobaynaa muuqaalkeena maanta. Weli kagamaanan hadlin sababta uu Hakuul yimid magaalada Muqdisho, balse dib kaga soo sheegi doonaa.